الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، waxaan weli ku dhex jirnaa duruustayni tasriif alafcaal. waxaan hore uga soo hadalnay alficlu min xaysu atajarud waziyaada. waxaan kaloo ka soo hadalnay alficlu min xaysu asiiqa. darsigana maanta wuxuu ku saabsan yahay alficlu min xaysu asixatu walictilaal. wuxuuna u qaybsamayaa ilaa saxiixin wa muctal. alficlu min xaysu asixatu walictilaal macnaheedu waxa weeyaan ficilka markii laga fiiriyo xuruuftiisa asalka ah laba u qaybsamaya: صحيح هي معتل. صحيح وحال هذا أما تعريف يسوى حويان هو الخالي من أحرف العلة، وفعل كمرا حروف تلويق عن حروف العلة، وألف واو إياء. مثال كثير: نصر وقرأ ورد. نصر وحي كمرا انتهي حروف العلة، قرأ سيدوكلا، ردنا سيدوكلا. saddexdan miaal waxaa loo yaqaanaa saxiix, sababtoo ah waxay ka maran yihiin min xuruuf alcilla. qaybta labaad waxaana lagu xadeeyaa huwa maa fiihi xarfu alcilla, waa ficilka laga helay xarf min xuruuf alcilla. xarf cillahaas marka ha galo faa'ulkalima sida wacada, ama caynulkalima sida qaala, ama laamulkalima sida saca. waxaa kaloo dhici kara laba xaraf min xuruuf alcilla in laga helo kelimadda sida nawaa oo kale. waxaana loo yaqaana noocaasi lafiif, sida noo imaan doonta. ficilka wuxuu u qaybsamaa ilaa saxiixin wa muctal. horaan soo dhiganay mid kastoo ka midana wuxuu leeyahay aqsaam. waxaan ku bilaabaynaa aqsaamu alficli asaxiix. yanqasimu asaxiixu halaathata aqsaam. ficilka saxiixa wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood: wahiya saalimun ومهموز ومضاعف. قيب والباء تعريف كذا هي أمثلة شيئين. هدان قبلونا السالم هو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف. فعل كسالم وفعل كمرا حروف العلة، يعني مركل قرأ وكمرا من حروف العلة وحلقة وضاء سوشيسة فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة أيام وحنكوشيرين حرف من حروف العلة. sidoo kale hamzu ka maran yahay iyo tadciif. amhilada waxa weeyaan daraba wa farixa wa xasuna wa daxraja. amhiladaasoo dhan waxay ka maran yihiin min xuruuf alcilla walhamsati watadciif. saalim baa la yidhaahdaa. qaybta labaad waa almahmuuz. huwa maa fiihi hamzatun, waa ficilka xuruuftiisa asalka ah mid ka mida ee hamse ay ku jirto. mithaal: akala waa ficil mahmuuz, hamzadana waxay ku jirtaa faa'u lkalima. sa'ala hamzada waxay ku jirtaa caynu lkalima. qara'a hamzadu waxay ku jirtaa laamu lkalima. saddexdan ficil waxaa la yidhaahdaa mahmuuz. waxaa ku xiga mudacaf. mudacafka laba qaybood weeyaan: mudacafu thulaathi iyo mudacafu rubaaci. mudacafu thulaathiga waxaa lagu qeexayaa huwa maa kaanat caynuhu walaamuhu min jinsin waaxid. waa ficilka cayntiisa iyo laamtiisa ay isku xaraf yihiin. hadda maalan madda asalkeedu waa madada. saddex xaraf buu ka kooban yahay: miim iyo laba daal. labada daal midna waa caynulkalima, midna waa laamulkalima. ficilka noocaasoo kale waxaa loo yaqaanaa mudacafu thulaathi. amhiladiisu marka waa madda, azza, wadda iyo wixii lamida. qaybta labaad waa mudacafu rubaaci. waxaana lagu qeexaa هو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد. فاء الكلمة هي لام الكلمة اسكن نوع ويان، وعينه ولامه الثانية من جنس واحد. عين الكلمة هي لام الكلمة الثانية نوع اسكن نوع. هذا مثلا زلزل. فاء الكلمة هي لام الكلمة الأولى واسكن نوع وأنا حرف الزاي. عين الكلمة هي لام الكلمة الثانية نوع اسكن نوع وأنا حرفك اللام. وسوس سيدوكلا. فاء الكلمة ولام الكلمة الأولى واسكن نوع وأنا حرفك الواو. عين الكلمة هي لام الكلمة الثانية نوع اسكن نوع وأنا حرفك السين.
marka zalzala, waswasa, damdama iyo wixii la mid ah. halkan marka waxaa noogu dhammaaday aqsaamu alficli asaxiix. qayb walba waa inaad marka tacriifkeeda iyo mithaalkeeda aad taqaanaa. aqsaamu alficli almuctal. halkan waxaan guda gelaynaa qaybtii labaad. yanqasimu almuctalu, ficilka muctalka wuxuu u qaybsamaa 4 aqsaam, 4 qaybood. wahiya mithaalun waajwafun wanaaqisun walafiif. waxaan ku bilaabaynaa almithaal. waxaa lagu qeexaa huwa maa kaanat faa'uhu xarfa cila. waa ficilka faa'u lkalima ay tahay xarf min xuruuf alcila. mithaal wacada, ya'isa iyo wixii la mida. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa alajwaf. huwa maa kaanat caynuhu xarfa cilatin. waa ficilka cayntiisa ay tahay xarf min xuruuf alcila. hada mathalan qaala, baaca, ikhtaara. mid kastoo ka mid ah caynu lkalima waxaa weeyaan xarf min xuruuf alcila. qaybta saddexaad annaaqis ayaa la yidhaahdaa. huwa maa kaanat laamuhu xarfa cilatin. waa ficilka laamtiisu ay tahay xarf min xuruuf alcila. mithaal dacaa, ramaa, iqtadaa iyo wixii la mida. kan ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa allafiif. huwa maa kaanat fiihi xarfaa cilatin. waa ficil kasta oo laga helay 2 xaraf min xuruuf alcila. wa huwa nawcaan, 2 nooc weeyaan. alأwalu allafiifu almafruuq والثاني allafiifu almaqruun. allafiifu almafruuq waxaa la yidhaahdaa 2 xaraf ee xuruuf alcilaha iskuma xigaane xaraf kala u dhexeeya. taana waxay ku suurtoobaysaa in faa'u lkalima xarf cilo noqoto, laamu lkalimana marka xarf cilo noqoto, caynu lkalima uu noqdo xaraf saxiix, sida wafaa, waqaa, waliya. 2 xaraf ee xuruuf alcila waxaa u dhexeeya xaraf saxiixa. noocaasi waxaa loo yaqaanaa allafiifu almafruuq. والثاني qaybta labaadna waa allafiifu almaqruun, bimacnaa 2 xaraf waa isku xigaan. mathalan rawaa iyo hawiya iyo xayiya. marka 3dan iyo wixii la mid ah waxaa loo yaqaanaa allafiifu almaqruun. 2 xaraf ee xuruufta cilada ahaa waa isku xigaan. halkana marka waxaa noogu dhammaaday aqsaamu alficli almuctal. هذا وبالله توفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.